assalaamu calaykum. ku soo dhowaada barnaamijkeena dhambaal oo toddobaadkii hal mar aad halkan alladii podcast kala socon doontaan. maanta barnaamijka waxaa iigu martiya saaxiibkay qaaliya aqoon-yahan cabdifataax qalinle oo aan ka wada sheekaysan doono waxyaalaha laga filayo xisbiga talada dalka ku guulaystay ee waddani iyo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro. ku soo dhowaada barnaamijka. su-aasha koowaad ee mudan in la isweydiiyo ayaa ah maanta ee shacbiga somalilan maadaama ay u codeeyeen 60% madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro, maxaa maanta ay dadku rajo ka qabaan? in badan buu xisbiga waddani ku soo ololeeyey rajada shacabka ama isbeddel doon. isbeddel nooceeya ayuu bulshada maanta u horseedi doonaa? rajadii la filayey rajo nooceeya ayay noqon doontaa? dadkuse maanta maxayse ka filayaan cabdiraxmaan? bal cabdiga ku soo dhowow qodob iyo laba bal dul istaag aragtidaada. aad iyo aad baad ugu mahadsantahay Saciidow. marka laga hadlayo wixii ay ku soo ololeeyeen xisbigii waddani oo tahay rajada shacabka amba isbeddel doon, badanaaba dhowr shay baa salka u ahaa amba sida ay ku soo qoreen barnaamijkooda siyaasadeed. 1 wuxuu ahaa midaynta shacabka, 2 waxay ahayd dhaqaalaha kor loo qaado, 3 amba 4 5 dhowr baa jira. qodobka 9aad baa badanaaba ahaa ictiraaf raadinta. anigu waxaan aaminsanahay Somaliland maanta marka laga reebo dee waxa gudaheena oo taasi ay tahay dee siyaasad gaaraba looga baahan yahay, mudnaanta koowaad ee qarannimo maanta waxaa loo baahan yahay in la siiyo ictiraaf raadinta. laannu waxaan aaminsanahay dhaqaalaheena hoos u dhacaya iyo isqabqabsigeena siyaasiga iyo faragelinta shisheeye ee markasta ina soo dhexgelaysa ee caddayd imika sanadkii ugu dambeeyey waxyaabaha la isku dayey oo wadamada jaarkeena sida jamhuuriyaddii hore federaalka jamhuuriyaddii hore Soomaaliya kala go'nay ee maanta qaybteedu ay tahay jamhuuriyadda federaalka la yiraahdo, iyo Djibouti iyo wadamada Masar, Eritrea iyo waxyaabaha isku dayey marka la eego waxa lagala dagaalamayay in aad ictiraaf heshid. madaxweyne muuse biixi cabdi madaxweynihii hore ee imika weli dee inkastoo isagu talada hayo oo madaxweyne cabdiraxmaan cirro madaxweyne la doortay yahay weli aan la dhaarin, wuxuu soo gaadhsiiyey Somaliland meeshii ugu sarreysay markay noqoto meeqaamka amba ictiraafka caalamiga ah oo qarqarka uu saaran yahay. ood arkayseen 2024 heerka ay Somaliland maraysay markii loo eego 33 sane ka horreeyay. waxaa laga rabaa xisbiga waddani oo maanta la doortay iyo madaxweynaha la doortay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro in ay xaqiijiyaan himilada iyo rabitaanka shacabka Somaliland ay sugayeen 34 sano ee ay dhammaystiraan ictiraafka, ay Somaliland noqoto waddan ictiraaf buuxa ka haysto beesha caalamka ka mida oo inoo furi doonto albaabo dhaqaale, oo inoo furi doonto iskaashi caalamiya, oo inoo furi doonto inaan saaxiibayntan ka badan yeelano. markaa Saciidow maran raba inaan kugu dheereeye bal intaasan kusoo koobaya baladu maxaad aragti ka leedahay? cabdi aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii. waxaad moodaa haddaan halkaa yara dul istaago madaxweynaheenii hore mudane muuse biixi cabdi allah ha sharfo cimrigiisa iyo caafimaadkiisana allah u dooray, wuxuu la kowsaday wakhtigii uu dalka qabsaday ee ahayd 2007 dhibaatooyin kala duwan oo globally ama nationally ahaa iyo kuwo kaloo gudahaba ahaa. kuwii gudaha ahaa waxaa ka mid a colaade iyo dagaallo sokeeye, waxaa kaloo ka mid ahaa jabhado, waxaa kaloo oo ka mid ahaa coronaviruskii, waxaa kaloo ka mid ahaa isku xidhankii badaha oo dhaqaalihii adduunku inta badan uu hoos u dhacay. waxaa kaloo inta badan saameynteeda Somaliland laga dareemayey dagaalkii Ruush iyo Ukraine oo inta badan saameeyey isku socodkii iyo maaragtay sixirkii alaabaha maciishada adduunka. waxyaala badan baa uu la kowsaday. wakhtigaa ka bacdi iyadoo oo ay jaaniska ka faa'iidaysanayaan xisbiga waddani, waxyaalihii ay ku ololeeyeen waxaa ka mid ah inay samaynayaan isbeddel, inay samaynayaan sidoo kale maaragtay waxyaalo fara badan oo ay ballanqaadyo bulshada ay u soo bandhigeen ay jiraan. madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro oo 13 Noofembar lagu doortay cod aad iyo aad u fara badan, waxaad moodaa in bulshadu ay rajo weyn ka qabto arrimo fara badan oo dalka ku gadaaman.
runtii haddaan si yaroo kooban aan qodob idiigu yar dul istaago waxyaalaha laga filayo maanta cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo xisbiga wadaniba waxaan oran karaa bal 60 qodob baa ugu waaweyn. qodobka koowaad, dhismaha xukuumad hufan oo tayo leh. cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waa in uu soo dhiso golo wasiiro oo khibrad leh kana turjuma bulshada oo dhan. 2, xoojinta sharciga iyo hufnaanta maamulka. waa in uu madaxweynahan hadda la soo doortay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro uu sameeyo isbedello sharci oo lagu xoojinayo daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka bulshada dhexdeeda. 3, waxaan yidhaahdo heshiisyo dhaqaale oo xooggan oo ay kow ka tahay heshiiskii madaxweyne muuse biixi cabdi uu sanadkan bishii 1 2024 uu la galay dowladda Itoobiya. 4, dhiirigelinta wadahadallada iyo iskaashiga bulshada dhexdeeda. waa in uu xoojiyo in uu bulshada sidoo kale aan yidhaahdo uu ku hogaamiyo wadatashi iyo iskaashi si gaar ah loogu eegayo horumar loo dhan yahay. 5, cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro madaxweynaha hadda la soo doortay waa in uu ka faa'iidaysta aqoon-yahanka iyo khuburada qurbajooga iyo dadka kale qolqoljoogaba. waa in uu si dhow ula shaqeeyo aqoon-yahanka oo uu isku dayo si uu aragtidooda iyo fikirkoogaba inta badan uu u dhagaysan lahaa oo uu ugu salayn lahaa maamulka iyo governance-ga uu ku hogaamin doono 5 sano ee soo socota xukuumaddiisa. haddaba cabdifataaxow waxaan rabaa halka inaan su'aalkaa weydiiyo. cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro haddii maanta ballanqaadyadii uu bulshada u ballanqaaday oo ahaa ballanqaadyo aad u waaweyn uu ku guuldaraysto in uu bulshada sidii ay ka filanayeen rajadii laga qabay ay sideeda u hirgeli weydo, aragtidaada maxay kula tahay cabdiyow? anigu waxaan rajaynayaa siciidow inaanay kowtaasi dhicin oo dee qof haddii maanta uu ku guuldaraysto mudane cabdiraxmaan ciro inuu rajada shacabka uu dee maanta kor u soo kacday amba taageerayaashiisu ay himiladoodu ay tahay inuu kaga midho dhaliyo dee waa fashil siyaasiya, fashil hogaameed iyo fashil ku imanaya jamhuuriyadda somalilan laftarkeeda oo intaasoo sana ay nagaga khasaarayso isbeddel aan midho dhalin. taasna dee cid rabtaa ma jirto oo maanta ninka madaxweynaha qarankiisa ka soo horjeesta xisbi waa la ismucaaradi karaa, siyaasadda waa lasaga soo horjeedsan karaa oo aniga laftarkeyguba siyaasadda wadani maaha siyaasadaan taageersanahay, laakiin maanta waa madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan oo waxaan u rajaynaynaa inuu ku guulaysto. laakiin su-aasha saad u dhigtee tahay hadduu ku guuldaraysto dee wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu saamaynta xumaa jamhuuriyadda somalilan. laanna mucaaradad intaa leeg markaad qaranka 7 sano ilaa 14 sano aad geliso oo macaa doorashooyinkiinii 2017 aad muran geliso oo lagu hanqal taago amba laysku laab garaaco ladhaahdo beel baa loo diidan yahay inay kursiga korto, dee markaad beeshii aad kursiga aad kortay iyaga laftarkoodii waxbay kaa sugayaan. iyaga laftarkoodii ayaa maanta rajadoodii ay kugu xidhan tahay. jamhuuriyaddii somalilan inteeda kaloo dhow ku sugaysaa, dagaallo ka socda meel kastaa ku sugaya, khilaafyaa ku sugaya. badanaaba siciidow marka ay madaxdu qorshahooda siyaasadeed uu fashilmo ama la fashiliyo badanaaba buuq baa ku kaca, badanaaba mucaaradad xun bay la dareemaan, badanaaba ummadda ayaa isku hortimaada. taasina somalilan dan uguma jirto. marka waxaan kula talinayaa madaxweynaha la doortay ee cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro inuu ka waantoobo uu barnaamijkiisaasi fashilmo amba la fashiliyo. dee cabdiraxmaan cirona ma aha nin maanta siyaasadda ku cusub, gudoomiyaha baarlamaanku intaasoo sano ahaa, isaga laftarkiisu uu garanayaa sida siyaasadaha loo fashilin karo oo dee xisbiga wadani uu isagu ka tirsan yahayba waxay 7 sano ka shaqaynayeen madaxweyne muuse biixi cabdi fashiliyaan. 5 sano oo ka horeysayna ilaa 2012 ilaa 2016 amba 17 dowladda siinaayay kasoo horjeedeen. ilaahu naxariisto madaxweyne axmed siiraayo. marka uu og yahay maanta nin loo sheegaya maaha in siyaasaddiisa la fashilin karo. muxuu kaga hortegayaa? siduu dadka isugu keenayaa? siduu shacabka rajadooda muxuu ahaa
ay u taageerayaan. Example aan ku siinaya maanta madaxweynayaasha adduunyada leen taariikhda inaga uguma horeynee wadamo badan baa doorashooyin galay, wadamo badan baa sidaan soo marnay. Badanaa madaxweynuhu hadduu sanadka ugu horeynba 2 sane ugu horeeya shacabku ay ka arki waayaan in uu rajadoodii buuxiyey amba isbedelkii kaga midho dhalin waayey, shacabka laftarkooda ku kaca oo caqabada ku keena oo ay adkaataa siduu u maamuli karaba qaranka. Marka taas ciidan waxaan kaga baxayaa ilaahay naguma keeno haddii uu isbedelkaasi fashilmo, laakiin waxaan u rajaynayaa inuu isbedel khayr la noqdo. maanta isagaa taladii haya, maanta isagaa looga dambeeyaa. Somaliland mustaqbalkeedana ugu yaraan 5 sano soo socota say gacanta ugu jirtaa. Ilaahu xilka ku astur. cabdi aad iyo aad baad mahadsantahay. waxaad moodaa maanta madaxweynahan hadda la soo doortay inuu fursadaha maanta haysta ay aad u fara badan yihiin, laakiin saan horeba u sheegnay sida uu isagu uga faa'iideysto ay ku xidhan tahay. xisbiga wadani oo uu isagu musharax ka ahaa wuxuu ahaa xisbigii ballanqaadyadii ugu faraha badnaa bulshada Somaliland u sameeyay, sida inuu miisaaniyadda kor u qaadayo ilaa 1 bilyan, in uu samaynayo wadooyin halbowle ah sida uu sheegay wadada isku xidhaysa maaragtay Looyacado ilaa iyo Baki, sidoo kale inuu wadada Balugubad la dhisayo, sidoo kale inuu dhahmo waaweyn oo major projects noqonaya infrastructure, sidoo kale waxaan yiraahdo inuu samaynayo ama uu dhisayo major infrastructure projects oo uu dhahmo waaweyn dhisayo. sidoo kale waxyaalihii uu ballan qaaday waxa ka mid ah in uu ciidanka 200% in ka badan uu mushaarka u kordhin doono, sidoo kale inuu guriga u dhisi doono. waxyaalo fara badan baa dadku ay xisbiga wadani ku doorteen oo ay inta badan ay ka filanayaan. sidoo kale maaha inaynu ilowno qodob muhiim ah oo bulshada Somaliland xisbiga wadani ay ugu codeeyeen, khaasatan gobolada galbeedka iyo bariga, oo ah inuu furi doono dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland oo inta badan cabashooyin fara badan ay bulshada Somaliland dhexdeeda uga timaado, sidii saami qaybsiga iyo Somaliland loo wada leeyahay waa sidii ku ololeeyeen loo heli lahaa. runtii waxay la tahay maanta haddii Cabdiraxmaan Cirro uu ka faa'iideysto fursadda uu haysto in uu noqon doono xisbigii ugu wanaagsanaa ee Jamhuuriyadda Somaliland soo maray. haddiise maanta ay ku guuldareystaan ballanqaadyadii sida cadceedda u caddaa ee ay bulshada Somaliland la hor yimaadeen, taasi waxay keeni kartaa sida adiguba cabdiyo ka dhawaajisay inay noqdaan madaxweynihii ugu taariikhda xumaa Jamhuuriyadda Somaliland. laakiin ilaahay waxaanu ka baryaynaa in uu inooga dhigo madaxweyne inoo hirgeliya rajadaas iyo ballanqaadyadaas iyo himilooyinka wanaagsan ee bulshadeena la hor yimaadeen kii ka rumeeya. ilaahayna ha ku garab galo bulshada Somaliland. waxaan ugu ducaynaynaa in uu ilaahay ka dhigo bulsho la shaqaysa madaxweynahooda iyo xukuumadooda haddii ilaahay idmo. aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhegaystayaal ama daawadayaal. maanta barnaamijka waxaa marti iigu ahaa saaxiibkay Cabdifataax Qalinleh. insha Allah intaynu ku kulmanno barnaamij kaloo la mida waxaan idin soo rajaynayaa khayr iyo guul iyo gobonimo. sidoo kale fadlan haddaad jeceshiin barnaamijyo wanaagsan oo aad rabtaan inaad nala wadaagtaan commentiga nagula soo wadaag. sidoo kale hanaga ilaawin inaad like iyo share iyo subscribe aad noo samayso. aad iyo aad baad mahadsantihiin.